السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعدنا إذن الله الله وحن قان صدي إن أنا إذن لو ذابو حالة أنفس وجانا هاي وح مسكح لي مرب أن كيف فكرة أيان دوني أيان إذن لو ذابو أرين أن مدوغا سو فكرة معهن أرين أن دوني أما أن كت لمي إن كشك يا معهن أرين أن رقني عادة أولى يا معهن ووحلو يقان السياسة سياستنا شقة إذا معها إلا إن يقصوا كشر لنا caafimaadka iyo caafimaadka dadweynaha waxaan u dan leeyahay waxay tahay waxaan doonayaa inaan idinla wadaago howl anigu aan buuxinayo oo loogu talagalay kaliya dadka halkan jooga laakiinse marka aan dib u fiiriyay waxaan isiri waaba 10 dadka iyagu ay wax ka baran karaan maadaama su'aashan taagan ee one man one vote or one person one vote oo qolaba ay si ay u isticmaalayso qaarna ayba ka dideenba qaarna ayba dadku ku xuuxinayaan oo leeyihiin ay ma moodiyeen in iyagu ay xaq u leeyihiin marka waxaan isiri labo ayaan doonayaa mid waxay tahay intii aan ku noolaa dhulka hadaan deganahay laga soo bilaabo doorashooyinkii aan ka qayb qaatay iyo wixii aan kollay ka faa'iiday iyo waxa aan isleeyahay ummadda Soomaaliyeedna wax way uga tari karaysaa maadaama arintooda ay aad isugu murugtay oo ay dhaqanna ku kala bixi laayihiin diinna ku kala bixi laayihiin aqli aadane ee adduunkan lagu maamulana ay ku kala baxayn kii allana ay badiideen marka waxaan isiri kii adigu marka aad ku nooshahay iyo sida uu u shaqeynayo isna la wadaag waa intaasoo ciidi ay ku caqlidaa waa intaasoo qof uu wax ku gartaa intaa kaliya u dan leeyahay muhiimadeedu waxay tahay inaan idin la wadaago hal shay oo ah maanta maxaan samaynayaa iyo anigoo ka duulaya runtii hadal ikiciyana waxa uu ahaa maraan dhageysanaya waxa maanta Soomaaliya ka dhacaya ayaa waxaan dhageystay madaxweyniheenii hore ee maxaa la dhihi jiray oo dhahaya nin xukun u ordaya waa nin naar u ordaya wuxuu ahaa Cali Mahdi Maxamed oo hadal maanta ka yiri shirmeel ka furmaya ama uu ka hadlayay marka anagoo taa ogo culimada waa hore inooga digeen oo axaadiistii nabigana ay noo sheegtay xukunka inuu yahay wax runtii aan lagu degdegin ee qofka isaga la qasbayo umadi ay qasbayso inuu ay markay xal u arkeen in sida uu xil ku qabanayo laakiin ummadan wada ordaysa ee ku waalatay xukunka madaxweynihii hore wuxuu noo sheegay in waxa loo ordayo uu naar iyo dab yahay waana aaminsanahay taa waa sababtaan siyaasad aan xirfadna uga dhigan aan runtiiba ka soo caaganahay inaan ka hadlaba oo runtii waxa Soomaaliya ka socdana ay tahay wax waali ah laakiinse waxaan doonayaa waxa aan runtii ku talamay aan doonayo inaan idin la wadaago in aan bal marka hore idin la wadaago dabadeedna tala inaan ka geysto hadii sidee ku dhici karaysa hal qof iyo hal cod Soomaaliya waxay tahay markii Mareykanka aan imid waqtigaas Bill Clinton baa madaxweyne ka ahaa oo gabagabadii baa la joogay 4 sano ugu dambeysay second termkii kadib Al Gore buu soo diyaariyay 2000 kii baa doorasho dhacday markaas anigu eligible uma ahayn inaan codayo laakiin wixii ka dambeeyay 2004 kii 2008 kii 2012 kii 2016 kii ugu dambeeyay intuba waan codeeyay marna active baan ka ahaa oo maxaa la dhihi jiray waqtigii Obama oo aan runtii jeclaystay ninkaasi Soomaaliga u eg in aan maxaa la dhihi jiray taageero 2020gana hadduu allaydmo maalmo ama bilooyin baa inaga harsan marka dadkaygu maxaanu ka faa'iideynaa hawshaasi marka aad noqotid nin wadankii sharciyadiisa qaatay ee u dhashay ama naturalization-ka aad martidee Mareykan aad noqotid runtii waxaad xaq u yeelanaysaa hal shay oo aad muhiim u ah in aad codeyn karaysid inaad dooran karaysid qofka adiga markaas madaxda ku noqonaya hadday tahay degmada aad ku nooshahay hadday noqoto maxaan ku leeyahay county-ga ka sareeya hadday noqoto state-ka aad ku nooshahay iyo hadday noqoto Congress-ka iyo Senate-ka iyo madaxweynaha wadankaba fursadahaasi baad leedahay hal cod marka hal cod wuxuu faa'iideysu tahay aniga kan maskiinka ah Maxamed ah ee qaxootiga ka yimid Soomaaliya
iyo ninka waddankan ku dhashay abka ab ilaa iyo inta uu yaqaano iyo native americankii waddanka dhulka loogu yimid dhammaantayo waa u simannahay qof kasta hal cod buu leeyahay madaxweynaha waddanka iyo anigu waa u simannahay midkeenniiba hal cod buu leeyahay ninka caalamka ugu taajirsan ee inala deganay ee Jeff Bezos ee Amazon leh iyo maxaan ku raahdaa Bill Gates ee bilyaneeradaasi hal cod bay leeyihiin waa maalinta kaliya dadku ay siman yihiin oo ay ku siman yihiin codka waxaad leedahay one ballot hal warqad oo aad hal meel kaliya aad hebel u dooranaysid wixii adigu markaa u garatid hebel inaad u doorataa taasi sinaanta xaggaa way jirtaa laakiinse dadka lacagta leh waxay ku dhaamaan inay iibsan karaan sida ay ku iibsan karaanna waxay tahay waxay gadanayaan intaasoo media ads ah oo ay idaacaduhu ay gadan karaan oo 30 second-kiiba ay dhici karaysa $100,000 inay tahay 130 second hal mar lagu rangareeyo oo la yiraahdo hebel waa fiican yahay waxaanu ku fiican yahay hebel waxaasay ama hebel ay taageeraan ama maxaan ku raahdaa cid kale ay maxaan ku raahdaa maalgeliyaan lacagta ku baxaysa Mareykanka doorashooyinku waa xaggaasi waa isbarasho iyo maxaan ku raahdaa is-horumarin adiga is horumarinaysa waxaan doonayaa dadka tusaale ahaan aan rabo hadda inaan waxyaalaha falaayaro qofku uu lacag ku bixiyay ee uu soo diyaarinayo hebel baanahay saasaanahay ee i dooro lacagta xaggaasi gelaysa dadka iyaguna waxay moodaan ama sidaan u dhaqmeyno ama codku uu yahay wax la kale suuqa saylada xoolaha oo kale ayaan u dhaqmaynaa taasoo runtii caqli bini aadan iyo caqli insaaniba aanu ku fiicnayn marka waxa u dan leeyahay waxay tahay inaan u daadego marka waan is-register gareeyay rajay waxaan noqday qof inuu codeeyo oo hore u soo codeyn jiray haddana u codeysan marka waxaa la ii soo diray pamphlet weynaaday oo qof kasta loo soo dirayo pamphlet weynaaday buugaas weynaaday oo ay ku qoran yihiin inta qof ee codeynaysa inta qof ee u taagan governorkeena ama ninka madaxweynaha ka noqonaya county maxaa la dhihi jiray statekeena waa governorka waa qof Jay Inslee la yiraahdo oo dimuqraadiga ah waxaa la loolamaysa intaasoo qof oo 37 qof ku dhawaada oo mid kastaba qaarna ay sheeganayaan inay ka socdaan Republican qaarna ay xisbi aan la garanayn oo cusub ay sheeganayaan intuba qof waliba uu leeyahay anigu chance baan u haystaa magaciisa soo bandhigaya governorku waa sida waxa intaasoo la yaro cala kulli xaal oo doorasho jirta marka anigu waxaan doonayaa inaan bal sharciyo sida u sahlan tahay annagu waxaynu haysanaa hadda waxa loo yaqaano dhammaan in mailka lagugu soo dirayo warqadii codbixinta kadibna aad buuxinaysid dabadeedna aad boostada u dhigaysid kadibna sheekadu waa dhamaatay maxaa la sameeyay guidance ama maxaa la jiray pamphlet oo dadka lagu wacyigelinayo loogu sheegayo hebel iyo hebelka aad dooranaysaa waa maxaa la jiray CV-giisa waxqabadkiisa waxaas weeyaan waxa weeyaan maadaama degmadaada uu degan yahayna qofkii waad kala dooranaysaa oo aqoon baad u leedahay qaarna macrifad u leedahay qaarna ama waxaad aragtayba warqadahoodii kuu soo direen ama waad la kulantaba ciddii danaynaysa waad la kulantaba taa markay dhacday dabadeedna waxaa naloo soo diray mail hebel oo lagu leeyahay waxaana kuu soo dirnay warqadaadii codbixinta ahayd warqadii codbixinta ahayd waa baltaa oo kale ila fiir statekeenna oo kale waxaan ku leeyahay liiska dheer ayaa waxay doonayaan dhammaantood governor bay wada cararayaan hal baan ka dooranayaa inta kale waxay u cararayaan meelo kale dhag hal meel ku dar maxaa la dhihi jiray buuxi kadib envelope ku rid washqada ugu rid kadibna waa dhamaatay sheeko dhan saxiixayga oo muhiima runtii intaasaan sameynaya muhiimadeedu ma lama hadlayo reer siyaata iyo dadka ila jooga lama hadlayo waxaan la hadlayaa waxay tahay Soomaalida kale ee inaga fog walaalayaal marka sida aan sameeyno maxamed waa codeeyay codeynteedii waxay noqonaysaa complete marka ay mailkaasi uu gaaro la verify gareeyo kadibna la count gareeyo markaasuu codkaygu tirsamaya dadka qaarkood way dhici karaysaa inay waxyaalo qalad ay sameeyaan oo ay ugu badan tahay xagga signature-ka maadaama aadan in person ay meeshaada u joogin
way dhici karaysaa dadka qaarkood inay qaladaad xaggaa sameeyaan marka qaladaadka noocaas oo kale ah waxay keenaysaa in codkaaga aan la tirin marka muhiimaddu waxay iga tahay keliya inaan kuu sheego hal qof iyo hal cod faa'iidadiisa waxaa ka mid ah aniga iyo qof kasta oo waddankan joogay waa u simannahay hal cod inaan bixinno anigu iyo walaalahay iyo inta ila aragtida ah marka aanu badanno waxaanu dooran karaynaa cidda markaasi aanu jeclaysanno inaanu xafiis keenno taasi waa sida ugu sahlan aan ku sheegi lahaa waxaan maanta aan samaynayo tusaale ahaan nin la yidhaahdo Adam Smith ayaa waxaan dooranayay inta aan xasuusto inta aan macna meesha hadda aan deganahay ee ah 9th district Adam Smith aqoon waa u leeyahay waanuna is aragnay inta ka horna isagoo hadda markaasi maxaa la dhihi jiray warqadiisu derbiga ii saaran tahay markii maxaan ku rahdaa taariikhda taasi ma doonayo maxaan inaan ku walaaqo laakiin waa ninka keliya ee magacayga iyo waxaanu qabanay haddaan nahay Soomaali ka sheegay Congress-ka oo ka akhriyay 2013kii kadibna dhowr jeer baan halkan ku kulannay wuxuu u taagan yahay aqaan boqolkiiba boqol sida anigu aan rabo ma samaynayo haddaanu samaynayna cid ii dhaantana ma hayo waxaan ku qaadanaysaa marka qofka noocaas oo kale ah waxa weeyaan wixii anigu aan kaa rabay iyo markaan kuu baahdana aan kaa helo mowqifka anigu aan jeclay inaad istaagtinna ii istaagnaaw kadibna yaanan kaa helin wax wareer ah oo runtii aad xag u jira ama aad dhinacan kale u jira yaanan kaa helin waxaan doonayaa maadaama inagu aynu runtii nahay dad oo muctadaliin ah oo aad dhexdhexaad u ah waa ogolaan karaynaa waxyaalo yaryar laakiinse ma ogolan xagga tarfiga ahee aadka u fog in qofna uu aado xagga siyaasadda iyo meel kastaba maxaa yeelay nidaamkii iyo barbaarintii iyo maxaan ku dhahay wasadnimadii aanu ku soo barbaarnay oo diintan inoo ah baanu mar kastaba huwannahay oonu ku dhaqmaynaa marka sheekadaasi aadam oo kale Ainsley oo kale iyo kuwo kale oo ay ka mid tahay gabadhan oo kale oo maxaa la dhihi jiray runtii aan ku qancay oo aan u codaynayo wiilkan oo kale oo runtii madownimada keliya ma ahan waxa mararka qaarkood waxaa dhacaysa wiilkan gabadheedii asaga iskuulkii uu ka baxay iyana ka baxday jaamacaddii uu ka baxday aqoon oo xigta ah oo maxaan ku rahdaa deegaanka aanu ku noolahay buu ku nool yahay iyo waxyaalo noocaas oo kale dhacaya iyo wuxuu u taagan yahay iyo siduu suu ku approach gareynayo uu kuu soo raadinayo ama warqadda kuugu soo qorayo ayaad qofka ku qiimaanaysaa iyo wuxuu u taagan yahay waxaad ogaanaysaa maalintaad u baahan tahay inaad ka helaysid waxaad uga baahan tahay ama meeshii aad rabto inuu ku istaago siriguu joogay city councilka haddana wuxuu u wareegay maxaan ku rahdaa stateka oo ku meel gaarnimo haddana wuu ordayaa inuu booska xajisto marka taa waa taa lacagtu marka dadkan waxay kaga baxaysaa $10,000 ayay kaga baxaysaa falaayarada tan irid garaaca kan maxaan ku leeyahay hadday awoodi karaanba TV in xayeysiin ay ka sameeyaan ama idaacada ay ka hadlaan waraysyada socodka intaas maxaan ku $10,000 ay kaga baxaysaa waa la kala dooranayaa dadku way kala harayaan kadibna qaar badan oo rajo lahaabaa maalinta runta imaato aad dhici karaysa inay haraan marka taasi waa tan aan runtii ogahay aan maantana buuxinayo berito oo August 4 ah dad badan oo ila mid ah ay samaynayaan aan sugayno waxaan sameeyno waa isra reebkeed liis dheer baa laba ku soo haraysa kaliya labadii ugu cod badato baa maxaan ku radaa November-ta oo November 3 u gudbi doonto tan general election-ka taasi waa waxa anigu aan maanta samaynayo ee aan doonayo dadkaygaas qaarna halkan joogaan qaarna waddankii joogaan bal inaan u sheego waxa kan in ay tahay wax saa'id ah iskuma compare gareynayo isma barbar dhigayo Soomaaliya oo dhibka iyo xaaladda ku sugan iyo Mareykankan ma aha waxaan samaynayo laakiin waxaan aaminsanahay markasta dadka yagu waa dad muslimiin ah waa Soomaali wallahi bay ka tahay waxaan aaminsanahay haddii caawa ay go'aansadaan in ay within month
iyo 6 bilood gudahood aan waxaan laga filan ay samayn karayaan inay ayagu isdoortaan inay ayagu is-agaasimaan inay ayagu kala dambeeyaan waxba kumay aha laakiinse waxbaa weli si un ka ah iyagiibaa isku wada maqan iyagiibaa isku maqan marka si ay u kala furfurtaan baa waxaan doonayaa aqoonta inta aynu leenahay in aanu ku darno si ay qayb uga noqoto at least 1 qof iyo 2 qof in ay wax tartaa waa arrinta aan samaynayo maantay marka waxaan u soo laabanayaa marka Soomaaliya maxaa dan ugu jira waxaa la isku haystaa one man one vote ma dhacayso kama gaarino waqti baan u baahannahay anigu waxaan leeyahay Soomaali waxa xal u ah danna ugu jirtaa dadku inay hadlaan dadku inay codkooda dhiibtaan dadku inay doortaan qofka iyagu markaa mathalaya ilaahu ha noqoto dad isku wada dhow oo waxay doonaan ahaadeen walaalo ah laakiin maadaama aysan dhacayn hadda waxa weeyaan 275 qof baa inoo joogta baarlamaanka 275 qof waxay ka yimaadeen districts ama degmooyin ama qabaa'ilo ama sub clans bay ka yimaadeen anigu ilaa hadda waxaanan fahmayn sababta kuwa diidaya war hebel oo ka yimid magaalada Garowe ama hebel oo ka yimid Boosaaso ama hebel oo ka yimid Baydhabo sababta maxaan ku raaddaa beledweyne aadan ugu faraxsanayn in reer beledweyne oo dhan hadday beledweyne ay leedahay intaasoo qof haddii nabadoonkii uu joogo oo uu yaqaano asxaabta maxaan ku raaddaa asaga uu nabadoonku u yahay jaanis ha loo siiyo intaasoo qof inay kursiga u tartantaa wad arkaysaan liiskan 37 qof ah ayaa governorkeena oo 1 qof ah oo isagana ku weyn garan doonan ognahay laakiin 37 qof baa rabta oo haminaysa inay iyana jaanis ay helaan ciidina ma hor istaagayso fee yar uu bixiyey background check la marsiiyey kadibna qofka watan nasiibkaaga dadku ha ku doorteen dadka ku doorteen hadday maanta dhacdo mid homeless ah oo aan la aqoon hadday ummaddu isku raacdo inay doortaan oo chance siiyaan kaasa noqonaya governorkeena marka maxaa u diidaya dadka yow haddii maxaan ku raahdaa magaalooyinkeena kulli magaalo aan aamin ahayn ma jirto 275 qof waliba wax tiro yar baa maxaan ku raahdaa magaalooyinkooda la haystaa sida Bu'aale iyo magaalooyin kale oo la haysto oo hadda aanan runtii halkan ka wada sheegi karayn magaalooyinka la haysto bal aan u sugnay kuwa xorta ah Kismaayo kale haddii reer Kismaayo ee 100,000 qof ee degan Kismaayo waxay kala dooran waayeen 10 qof 20 qof oo maxaan ku raahdaa baarlamaan u cararaysa way dooran karaan intee ku qaadanaysaa wala registrations u baahnayn way fiicnad registration la sameeyo way fiicnad ID in la sameeyo ummadan waxyaabo badan baa ka qaldan iska daa registration baynu ka hadlaynaa waxaan ka baqayaaba cunuga maanta dhalan haya inaanu waqti date of birth aanu lahayn in nidaam system oo maxaan ku raahdaa oo viral statistics lagu keep garayo keeni dhinta ayaa dhici karaysa inuu iska dhinto aan la aqoon recordna aan laga reebin marka ummad waxyaabo badan ka qaldan yihiin baan nahay ee u baahan inay sal dhigato oo ay fariisato wardadii maxay naga qaldan waxa kan wax jiray ahaayeen Soomaali waynu ka nimi waanu ku dhalanay maalin waxaanu dhalanay taariikhdeedii leh miisaankayagii leh dhakhtarkii maxaan ku raahdaa dhakhtar naga umlasay qoraysa saxiixaysa iyo hooyo suulka saaraysa kaartanaashatadeennii iskuulkeennii wax waliba waanu naqaanaa siday wax ahaayeen 30 sane wixiibaa afkiibaa maxaan ku raahdaa madaxbaa loo rogay maxaan ku raahdaa madax baa lagu socdaa marka goormaynu dadka kan la hadlayna oo runta u sheeganaa war dadkii madaxaad ku socotaane salka dhulka dhiga ee aanu maxaan ku raahdaa caqligu ha shaqeeyo wax waliba waa suuragelayaan haddii inagu aynu garaysano marka waxaan ku talinhayaa waxay tahay xalka kaliya ee Soomaali u yaala waxay tahay in ay inta ugu badan ay u codayso qofkii kasta waxaan ka baqayaa konton bay ahayd
konton kale ku dar 100 iyo 200 kale waxaas waa ruwaayad weeyaan madaxweynahana waxaan u sheegayaa qeyr allaha ku siiye adiga iyo dowlad goboleedyada markaas u timaadaan fadlan 200 iyo 500 iyo 1000 iyo waxaas waa ruwaayad weeyaan waxaanu rabnaa limitless inaysan wax limit lahayn magaaladii ay ka suuroobaysa 1 milyan inay ka codaysana inay 1 milyan ka codayso magaalooyinkii ay 100,000 iyo 200,000 ay ka codayn karaan ha ka codayaan tii 20,000 ay ka codayn kartaa ha ka codayaan ha noqoto baarka cirka ha loo dhigo oo qofka soo gelaya ha noqdo reerkaasi ama tuuladaasi ama districtkaasi kii uu fiicnaa ee ummadaasi iska soo saareed ha noqdo marka intaasaan ku talinaya waana suuragal waa suuragal within 6 months in wax kasta ay ku dhici karaan kororsi iyo wax la mid ah runtii Soomaalina way ka hadashay qofku gula talan lahayna ma jirto jaala madaxweyne waxaan jeclaan lahayn oon codkeena ku darsanaynaa in ugu dambeyntaadii February ilaa iyo June in aad maxaan ku radaa qofkii meeshaasi xilka qaban lahaa inuu yimaado adiguba noqotay marka insha Allah intaasaan ku darsanayaa waana arrin runtii iga soo gooday aan jeclahay dadkaygu inaan la wadaago maxaa yeelay cilmigu ama aqoonta ama informationku waa maxaan ku radaa waa hanti marka qaarkood way dhici karaysaa qofka waxaad ogtahay inaanu ogeyn marka haddaad ogeydna khayr Allah ku siiyo Allah ku barakeeyo intaadii haddaadan ogeyn oo wax iga faa'iidana maxaa la dhihi jiray anna waxaan isaga saarayay culayska haysta ayaan iska gudbinayay marka dhamaantayo Allah noo fududeeyo wadankayga nabad Allah nooga dhigo sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum wa rahmatullahi